gabar yar oo ku qaylinaysa caawiya isla markiina labadooda dhinaceeda u ordayaan midaan kale waxay weydiinayaan waxa dhacay iyaduna waxay u sheegayaan inay saaxiibadeed gudaha gashay ayna ka soo bixi weyday kadib labadooduba waxay bilaabayaan inay albaabka furaan laakiin way ku guuldareysanayaan midda yari gudaha kuma jirto ee samiicadaana meesha dhigtay si ay labadan u mashquuliso iyadina waatanahay waxay lugta ka banjarinay gaarigii uu watay saaxiibadeed aabaheed hawsheeda markii ay soo fulisay way soo orday gudaheena soo galay saaxiibadeedna waxay u sheegay inay isboosisay masqusha gasho kadib dun ay meesha ku sii diyaarisay albaabka ay ku xirtay ka wareejinay masqushana gudahii u galay xogaa kadib waxaa meesha soo gaaraya labadii oo kashawiita soo qaatay ugu dambeyn waxay ku guuleysayaan inay albaabkii furaan kuwan iyagoo isku maleeyay inay gabadha yar badbaadiyeen ayaa gabadha aabaheed waxa uu dhahaa waa ku mahadsantihiin sida ay soo dhaweyseen hadda waxaan rabnaa inaan sii baxno iyadana waxay dhahaysaa hadda timaadeen hadda sidee u bixiseen xogaa ma nala joogtiin laakiin midkan wuxuu ku adkaysanaa inuu baxo haddana ay u taala shaqo laga raba inuu qabto markii ay baxaan midaan yara hooyadeed waxay ku dhahaysaa saaxiibaday aabaheed ma iska guursatid laakiin hooyadu mideeda yar waxay u sheegaysaa waxaas in aysan macquul ahayn laakiin ay waayuhu wax walba macquul ka dhigi karaan isla markii labadii hadda baxdaa soo laabanaysa midkaana wuxuu dhahaa gaariga iga hilaabay lugta iga banjarta macnaha kadib hooyada midkaan waxay weydiinaysaa hadda maxaa kuu qabtaa ma waxaad rabtaa inaad taksi kuu waco laakiin isagu wuxuu taagan yahay anigaa wacday intuu ii imaanaha idinla joogaynaa iyaduna waxay u sheegaysaa inay mar walba soo dhoweynayso labadana waaba sidii ay rabeen qorshooda u shaqeeyey muuqaalkan intaanu ka ekay hadda halkaa soo gaarta leeg noo saar